السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada dhammaantiin waan idin wada salaamayaa meel walba joogtaan. Waxaan rabay ama aan jeclaystay inaan idinla wadaago sida ugu fudud ee lagu baran karo ama lagu horumarin karo luqad qalaad ama af qalaad. Idinlama wadaagayo wax research on sameeyay ama cilmi baaris kale. Waxaan idinla wadaagayaa khibradayda iyo anigu luqadaha aan bartay sida aan ku bartay igu soo gashay. Haddana markaan dib u eego aan idinla wadaagi karo sida ay tahay ugu fudud aad ku baran karto luqad cusub ama luqadda already aad taqaanid ama aad rabto inaad barato aad ku horumarin karto. So the best way ama sida ugu wanaagsani waa inaad ku hadasho luqadda kow haddii luqadda aad aasaas lahayn aasaaskeeda isku day inaad samaysato ama inaad isku daydo inaad iskuul aad tagto bilooyin maybe 6 bilood ama ilaa sanad qofba waxaa waqtiga ku qaadataa si aad aasaaskii luqadda u yeelato. Haddii aad aasaaska mar hore leedahay waxa u baahan tahay kaliya wuxuu yahay inaad luqadda ku hadasho. Just try your best just to speak. Find someone and just speak. Talk. That's all you need. Waan ogahay dadka intiisa badani waliba dadka ku nool wadanka gudihiisa waxaa laga yaabaa inay u suuragelin inay helaan qof ay la practice gareeyaan. مش مشكلة يعني waxaad raadsataa un qof adiga kula mid ah oo sidaadoo kale rabo luqadda inuu barto. Luqadda aad rabto qof aad isku dan tihiin ama aad maxay tahay aad isku muraad tihiin. So just speak. Waxa kale soo raaca wuxuu yahay inaad akhriso. Haddii aad labadaas samayso waxa kaloo dhan wuxuu noqonayaa wax sahlan. Marka intaas ayaan rabaa maanta in la idin wadaago. Waxaana idinku boorin lahaa in la barto luqadaha qalaad ama afafka qalaad khaasatan Englishka. Waana idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.